وهجاك وقدام بينتين مدحوينها مريكان كدونالد ترامب iyo marwadiisa ayaa laga helay caabuqa COVID-19 waxaa la sheegayaa in laga helay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo marwadiisa caabuqa COVID-19 madaxweyne Trump oo aad u jeestay jiray in la xirto maryaha afka lagu xirto iyo waliba galoofiska ayaa laga helay caabuqa COVID-19 asagoo aad u yaabanaa sida dadku ay uga baqayaan cudurkan madaxweynaha Mareykanka ayaa hadda wajahaya la dagaalanka coronavirus asagoo laga helay inuu ku jiro karantiil ilaa intuu ka bogsanayo wuxuu ka maqnaan doonaa mashraxa siyaasadda walow aan la ogeyn sida Trump xaalkiisu ku dambeyn doono haddana dadka qaar waxay ku qiimeynayaan Trump inuu halis ugu jiro inuu caabuqa u geeriyoodo waxay dadka arrintan rogroga ku qiimeeyeen madaxweyne Donald Trump saddex mas'alo oo kala ah kow da'da Trump labo culayska jirmiga Trump saddex inuu yahay qof laba waa midda koowaad madaxweyne Donald Trump oo 74 jir halka da'da markii loo fiiriyo wuxuu caabuqa aad u saameeyaa dadka da'da weyn waxaana la sheegayaa inuu Donald Trump halis ugu jiro inuu ka soo kacay caabuqani haya labo jirma ahaan aad ayuu u weyn yahay wuuna buuran yahay Donald Trump sida dadku sheegayaan sida uu helay xog ogaal oo dhumuda TV u warramay waxay sheegayaan in cilmi baarayaashu inuu Trump halis ugu jiro inuu ka soo kaco caabuqa COVID-19 Donald Trump waxaa sidoo kale jira inuu yahay qof laba inay yihiin dadka u geeriyoonaya xanuunka markii la fiiriyo u badan yahay rag ama yahay dadka labka ay leeyihiin dadka labka kuwa ugu badan ee u geeriyooda xanuunka Trump iyo marwadiisu markaan halis ayay ugu jiraan inay u geeriyoodaan xanuunka walow aan la ogeyn sida xaalku ku dambeyn doono haddana waxay dadku ka muujinayaan walwal aad u weyn inuu Trump ka soo kici waayo xanuunkan sida uu qabo sharciga dalkaasi hadduu dareemo xanuun aad u tiro badan wuxuu xilka ku wareejinayaa madaxweyne ku-xigeenka wuxuuna sidaa Trump u weyn doonaa booska madaxweynenimada waxaa laga yaabaa inuusan uma tartamin doorashada soo socota walow uu la daala dhacayo xanuunka COVID-19 Trump markii loo fiiriyo saameynta xanuunkan lama oga sida xaalku dambeyn doono hase yeeshee waxaa lagu qiimeynayaa inuu xaalkiisu yahay loo sahal oo aan bal ogeyn meeshu